Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta wararka qodobada maanta aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble oo si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo muxuu halkaasi u tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya falanqaynta ayaad ku maqli doontaan xasan cali khayro ah musharax madaxweynaha Soomaaliya 2021 waxa uu la kulmay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka maxay ka wada hadleen falanqaynta ayaad isna ku maqli doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona Professor Ablaal oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u tagan madaxweynaha Soomaaliya professorka oo si weyn loogu yaqaanay waxbarashada ayaa maanta xalfad weyn ku qabsaday magaalada Muqdisho dad badan oo ay ka soo qayb galeen qodobada wararka dibadda ee falanqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda dalka Norway oo ku dhawaaqday inaan la qurxin karin sawirrada dadku ay iska qaadaan aanu ku bilaabanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo caasimad ku meel gaar ah u ah maamulka Jubbaland ayaa halkaasi maanta si diin lagu soo dhaweeyay kadib markii uu halkaasi maanta booqasho uu ku tagay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland golihiisa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenada maamulka Jubbaland ayaa garoonka Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo boqolaal qof ay maanta halkaasi ku soo dhaweeyeen ayaa waxa uga mahad celiyay sida ay uga qayb qaateen soo dhaweyntiisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada Kismaayo madaxtooyadeeda waxa uu gelbiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii xiriir rasmi ah sidii la iskugu soo celin lahaa khilaafkii dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland dhexmaray ee ka dhashay doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu horay loogu doortay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale kala hadlay madaxweynaha Jubbaland in ciidamada isku dhafka ay ka shaqeeyaan maamulka Jubbaland loo xoojin lahaa iyo sidii doorasho rasmi ah oo la isla ogol yahay ay uga dhici lahayd magaalada Garbaharey iyo magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweynaha Jubbaland uga mahad celiyay sida ay u soo dhaweeyeen waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halkaasi maanta ilaa caawa uu kulamo la qaadan doonaa odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo culimada diinka magaalada Kismaayo isagoo oo kala hadli doona arrimo badan oo dhex mari doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta magaalada Kismaayo uu ku sugan yahay waxa uu sidoo kale bulshada rayidka uu la kulmi doona sida ay noo xaqiijiyeen wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isna lagu wadaa inuu maamul goboleedyada qaarkood booqdo maalmaha soo socda sidii uu gobolka ugu horgeli lahaa sida doorashooyinka Soomaaliya ay uga soconayaan musharax madaxweynaha Soomaaliya xasan cali khayre ex-ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay gudoomiyaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro isagoo halkaasi ay ka wahleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa hooygiisa ku booqday gudoomiyaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cali isagoo halkaasi maanta kula hadlay ra'iisul wasaaraha waxay isku xog wareysteen sidii ay doorashadu si habsami leh oo cadaalad looga dhici lahayd xasan cali khayre ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay Maxamed Xasan Ciro in uu cadaalad falo doorashada Soomaaliya xildhibaanada soo bixi doona ayuu sheegay in uu cadaalad ka noqdo sida uu sheegay xasan cali khayre waxa Maxamed Xasan Ciro dadka qaarkii ay yaqaana ay ku sheegeen nin afgaaban oo waliba aqoon u leh doorashooyinka waxa uu la soo shaqeeyay hay'adaha caalamiga Maxamed Xasan Ciro ayaa ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uga mahad celiyay booqashada ugu yimid waxa uuna intaasi waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro ayaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in ay ku kalsoonaadaan doorasho cadaaladdan ay ka dhici doonto Soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro Professor Ablaal oo bahda waxbarashada caan ku ahaa ayaa maanta magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Professor Ablaal oo caan ku ah dhinaca waxbarashooyinka iskuulo badan iyo waliba jaamacadaha magaalada Muqdisho ee gobolada dalka si weyn loogu yaqaan ayaa ku dhawaaqay xaflad weyn oo maanta kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho Professor Ablaal ayaa waxa uu sheegay in uu dalku samati bixin u baahan yahay qof aqoon-yahan loo baahan yahay kumanaan qof ayaa ka soo qayb galay
maanta xafladiisaas oo badan bahda waxbarashada iyo waliba macallimiin badan oo la soo shaqeeyay ardaydii uu wax soo baraya sidoo kale halkaasi maanta ku sugnaa iyagoo u mahad celiyay in uu u qalmo ama uu badbaadin kara dalka Professor Ablaal oo caan ku ah waxbarashada Soomaaliya. dowladda dalka Norway-na waxa ay shaaca ka qaaday in aan gabi ahaanba aan la qurxin karin sawirada dadku ay iska qaadaan. wasiirka tiknoolajiyadda u qaabilsan dowladda dalka Norway ayaa shaaca ka qaaday in gabi ahaanba dadku sawirada ay iska qaadaan inaysan qurxin karin. waxa uu sheegay haddii ay dadku sawiradooda bedelayaan ama rabaan inay sii qurxiyaan ay u sameeyaan calaamad muujinaysa in qofkaas sawirka uu qurxiyay. wasiirka ayaa ku macneeyay taasu inay khilaafsan tahay sharciga u yaala dalka Norway oo qofkiiba midabkiisa ama uu bedelayo ama si kale loo maleynayo sida uu sheegay wasiirka tiknoolajiyadda ee dalkaasi Norway. waxa uu intaasi ku daray in qofkii jabiya sharcigaasi uu mutaysan doono cawaaqib sida uu sheegay wasiirka tiknoolajiyadda dalka Norway u qaabilsan. baraha bulshada caalamka ayaa si weyn loogu falaqeynaya maanta dowladda Norway sharcigaasi ay soo saartay oo ku cusub caalamka iyada oo sheegtay dowladda Norway in ay uga leedahay in ay sharcigaasi ku adkayso. dadka Norway ayaa maanta falanqeynaya baraha bulshada iyaga oo muujinaya sawirro oo dowladdu ay iska soo qaaday oo halka dhug ay ku dirtay inuu qofku sidaas oo kale sameeyo haddii uu sawirkiisa bedelayo. guud ahaan falanqeyntii wararka oo aad kala socoteen channelka aan ku leenahay YouTube-ka Abshir Joker iyo waliba page-keena waa naga intaas nabadgelyo. haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsantahay, haddii kalena waxaan ku leenahay na soo raac oo subscribe sar iyo waliba page-kan ku leenahay Facebook. nabadgelyo.